الحمد لله ثم الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الله عز وجل: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. آية أيها الأحبة وآية سيدة سورة البقرة. الله سبحانه وتعالى وحو نوغا شاكينيا قار كميدا ددكا قولدا منافقين تلا يداهدو أيها الله جل جلاله نوغا شاكينيا ومن الناس ددكا وحا كميدا منبا كميدا يقول أرنيا آمنا بالله إلهي بان رميسنا هي داهيان وباليوم الآخر مالين قيامان رميسنا هي وما هم بمؤمنين، لكن حقيقة الله جل جلاله وحو المؤمنين مع كواسي نمن كاسي مؤمنين ما هي وقالوا ويان دوشا سراء waxa weeye daahirka kore ayay iimaanka sheeganayaan, laakiin qulubtooda waxa buuxiyay jiro iyo shaki iyo nifaaq ba ka buuxiyay. ilaahi jalla jalaaluhu qulubta kama ay rumaysna. ولهذا qofka muuminka sifaadka lagu yaqaan waxa weeye hadalkiisa iyo qalbigiisa iyo ficilkiisu inay iswaafaqaan weeye, laakiin munaafiqiintu isma waafaqaan, eraygooda iyo qalbigooda way kala gadisan yihiin. نبي محمد عليه الصلاة والسلام بانتهوا إمادان ومجالسي سي قوباه أفضي عليه الصلاة والسلام إمادان أيديه شرين وحن مخراتك أنه نبي محمد وإناتي رسولك إله جل جلاله ويا فضيحيي إني بين لوشيهين إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. إلهي سبحانه وتعالى ayaa ka maqraati kacay inay beenaalooshin yihiin, waa dadka ugu beenta badan weeyaan. ولهذا الله النبي محمد عليه الصلاة والسلام calaamadahooda wuu inoo sheegay. aayadda munaafiqiya calaamada lagu garto waxa weeye buu yidhi idaa xadatha kadab, munaafiqu markuu sheekeynayo been buu sheegayaa. waidaa tu'mina khaan, haddii waxa weeye la aaminana wuu khiyaanahayaa. waidaa wacda akhlaf, haddii waxa weeye uu ballan galana iyadana ballantiisa ka baxaya. ilaahi baa inoo sheegay subxaanahu wa tacaala noocaasi waa nooc dhib badan oo dadka muuminiinta ku dhex jira oo dhibaato badanna inagu hayo weeye. yukhaadicuuna allaha, ilaahi subxaanahu wa tacaala ayay khiyaanahayaan. ilaahi bay subxaanahu wa tacaala ee dadka muuminiinta ayay khiyaanahayaan. wamaca daalika saasay tahay wamaa yakhdacuuna ilaa anfusahum wamaa yashcuruun, naftoodun bay khiyaanahayaan, naftoodun bay dhakrahayaan iyagoon weliba aan dareemaynin fii quluubihim maradun fazaadahum allahu marada. qalbigoodu waxa uu jiran yahay, waa dad qalbiga ka buka weeyaan. allah subxaanahu wa tacaala qulubtooda shaki iyo wuxuu ka buuxiyey nifaaq ayuu ka buuxiyey gaalnimo. wamaca daalika saasay tahay fazaadahum allahu maradan, ilaahay waa u ziyaadiyey maradka. ولهذا أيها الأحبة نفاقها الله iska ilaaliyo, dadka muuminiinta waxa looga baahan yahay hadalka Allah jalla jalaaluhu inay sida uu yahay u rumeeyaan, inay runta ku dadaalaan, inay ku dadaalaan ballanta inay oofiyaan, inay ku dadaalaan akhlaaqda islaamka, iskana ilaaliyaan akhlaaqiyaadka gaalnimada ah. ولهذا qofku inuu waxa weeye hadalkiisa iyo ficilkiisa iskhilaafaan waa nooc waxa weeye munaafiqnimada kamid ah. zamankii hore way isqarin jireen, aad bayna isu dabooli jireen, laakiin zamanadan dambe waxa weeye qofku nifaaqiisa wala soo taagan yahay. ولهذا نسأل الله جل جلاله إلهي وحن وديسننا نوعاس. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر ويري إن الله رميسنين ومدى كل حجرة. إلهي سبحانه وتعالى أمدنا وكقبته شرك ودنا وكحجابه ذلك مؤمنين تانا. إلهي سبحانه وتعالى قوة الإيمان لكم النجد. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور آياته تروي المسار
أبدا، وصفاته نبع الهدى، نلقى الجنان بحبه، لن تستقيم حياتنا